oo in dowlad soo jirtay una baahan in aad looga baraandago lagana fiirsado laguna degdegin waxaana dhamayn karayo oo bixin karayo sidii caadadina wahayn suldaani umadiinkii iyo odayaashii oo horta ka wada hadla maxaa la isku haystaa maxay yihiin qolo waxay isbeeysaa in dalka ay u degantay qolna waxay leedahay dalka weligii waan deganaan jiray jalal reer oo deganay maana inta la isku haystaa intaas in kala haddii laga dhaafo sigilaha oo aan u soo degno guda biirsay waxaa la yidhi alliance baa ka dhaxeeyay asaga iyo rejiimka maxamed siyaad barre waxay ahaayeen baa la yidhi instrumentigii lagu burburinayay laguna caburinayay shacbigaas sheegta isaaqa la yiraahdo oo sheegta maxaa la yiraahdaa umbrellada maxaa la yiraahdaa SNM ma iska sheekada tahay mise reality hadii la sheegayo haday sheeka tahay waa si dadku sheegay laakiin waxa weyn ummad badan oo far badan oo Soomaaliyeed baa waqooyi galbeed deganeen joog jirtay waan ogeyn xaaladda jirta iyo waxay reality tahay laakiin waxaana la sheegay wax ka jira ma jiro adiga waliga ma ku soo gaartay kelmadaas oo kale mise aniga kugu horeeyay wax ku yiraahdo ma qalay laakiin wixii reality run ahaantu ma soo noqonayso waxa weey arinta waxna waa barbagaan ya waxna waa barbagaan sax waxna waa xaqaay sax inaga waxayna dilo waxa weey sistemaha oo dhan waxa administration naga qarib waxa weey barbagaan bay waxayna dhan ku socotay waxa laga daba tagayay ya oo xaqaa'iq loo raadinay macni waxa weey wax xaqaa'iq oo la raadinay ma jiro ya suuqan ku gali baa loo oran jiro hebel waa sida suuq baa loo gali jiray anaga maqalay oo la nagu yiraahdo oo maxay la yiraahdaa gada buurso waxa daba dhilifta haro aniga kula hadlaya barbaraan joogaan maxamed siyaad barana wuxuu jeclaan jiray inuu dagaanada isku diro uu hoggiisa u dhiibo uu kala fogeeyo si cumrigiisu u dheeraado anaga tugu jala dagaal baa naga dhex socday maaragtay iyo boormaba maxay isaaq ana barbaraan taliya ka ah wada la xaaqay magaca lagu isaaqna waa kula soo baxay maxay taasi tahay wuxuu iigay waxay ahayd in cadaawada sii fogeeyo aan dadka laayo aan dhiiga badiyo dabadeedna maaragtay uu yiraahdo waka dadna maaragtay iska horimaadkii imkiisi u gaadho ayaa ahayd ugaay dadana waan ugu hortagnay moogtay waan ka hortagnay sacad baan ugu hortagnay marka horta arintan dad wax fogo maar dhexdooda yaala ma jirey sida idinka iyo inta isku dhooba loo hubeenay sida matalan STO qaarkood loo hubeenay ee loogu soo jeedinay dagaanka ku soo xiga ayuu intii dagaan isku xigtaba dabka isugu dhiibay uu maaragtay dadka isku diriyay ninka waa in xaqaa'iq raadsan anaga waxa weey gobolka awdal ayaan qabsanaynaa bilaha isaaq gobolka burca waa laga haysto faqashta ka haysata berbera faqashta ka haysata burco faqashta ka haysata ay ma weerareenay BBC da waxaad ka maqashay 100 goor awdal baan qabsanay awdal bay ku taamiyeen dadkani dad daafac ku jiro aagooga ku jira war anaga maxaad naga rabtaa sal cali horta markaad kuwiina soo xoreysataan waa iska heshiinaynaa haddii ay jirto maaragta meela aan ka weeraray nimanka oo reer boorama alla ilaahay soo kale halka weerar la leeyahay taariikhdu nagu cadaanaysa laakiin hadday ragga la weerarayo difaac ku jiro xataa xeebooga la qabsaday ya waxaan ahayn barbagaanku inuu Sacuudi xaqaa'iq wala raajo arrinta khilaafka SNM iyo SD kul jirto waxa weeye SNM ayadoo leh gobolada waqooyi baan danaynayaa kaligeed bay baxday markay ay baxday Ethiopia tagtay wada tashigeeda bursi oo lama iman markay soo dhameysteen danahoogii ay ahmaar la soo heshiiyeen ay hubkii ka soo qaateen ayay markaa dana raaci wada ma taqaana xoog baan ugu muqoonayna iyo may maxaan kugu raacaa horta markaad intaad bixin Soomaaliya waa tashano anigu waxaan oran karaa ma taqaana hadii la soo sheego hal taako oo dhul isaaqa oo gada buursi galay ama SNM oo meel degan oo ma taqaana reer awdal galay SDA gashay hala soo sheego waan ka baxay جل علي يعني وانت كلمة دربان في الدرية waxay tahay taariikhdan iyo khilaafkan imika ad su'aalaha badan naga weydiisay oo SNM iyo SDA labada khilaafka ka dhaxeeya haddii aan wax yar kaaga taabto aniga shaqaale hore
iyaan ahaa meeshana waxaan u malaynayaa internet wax weydiinayso haddii jananka laga reebo inta kale aniga ugu da'weyn waxa weeye waa taariikh hore khilaafkani ka soo bilowday laga bilaabo politically haddii loo eego xagga siyaasadda 1959 markii ingiriisku ka caayay wuxuu sameeyay wax la yidhaha shadow ministerada halka oo 9 bilood jiray xisbigii markaa jiray oo SNL ahaa oo dabcan isaaq ugu badnaa Soomaalidu way wada kacsanay tensionkeegu xorriyad baa loo dagaalayay yaa loo dhibay qaybiyaa leeyahay iyaga wada bursaday gobolka awdal markaa gobolka awdal lama odhanayna district boorama la odhanayay waxa laga siiyey hal wasiir intii kale laascaanoodna ma aqaan hal wasiir iyo laba wasiir wax laga siiyey intii kale iyaga is shubtay dadkii uu ka kacay dabcan feelinka iyo tensionku kaadiyo goru wada jiray nin walba waa yani hadii dawladnimo la helay ama wasiir la qaybinayo muranka hadiyo goor wuxuu ka taagan yahay in si cadaalad sida dadku wada yidhi loo qaybiyo waxa la yidhi halganka weynu ku soo wada jiray hal wasiir annagoo ka doodayna in la nooga badiyo 59 waa shadow ministers taasina waxa ay dawladku meel gaar ah sida tan imika oo lixda kala bedeli doono electionku markuu dhaco waxaan idin ma qaban halkii in wax laga qabto la eegay yuu nin siyaasi oo weyn imika ana magaciisa ma sheegay waa si la ogyahay yuu yidhi jilibkiisa intuu soo qaaday iyo wuxuu yidhi ma jilibkaasi oo aan wasiir helin sidee gudabiirsi u helaa wasiir kiina sidii baa laga qaaday markaasay ka bilaabantay in meesha la arkay cadaalad darro inay jirto dawladdan dambe oo soo socotaana aanay wax cadaalada keenay halkaasaa laga bilaabay iyaguna gobolka dad iyo mutacalimiina ay u badnaayeen oo u dhashay way fikireen waxa la dejiyey maadaama markaa ingiriisna la jiray oo hadiyo goor waad ogtahay yani gobolkaas iyaga SNL marka ah inuu ingiriiska hadiyo goor isku labnaayeen in jamhuuriyad weynba raadinteeda iyadoo dadku xasanaa iyagu ay markaasna xitaa federation ay doonayeen oo ina doonayeen in la isku darsamo annaga waxaan xisnay marka in jamhuuriyad weyn oo la dhaliyo kaliya aan qaybteeda ku heli karay waxa la bilaabay xisbiga aad maqashay oo la oran jiray USB taasina ay dhalatay in isbahaysi aanu la samaysano gobolka Laascaanood district Laascaanood si marka majority aan loo helin la noogu muqooniyo in federal la isku taago ama gooni loo dawladnimo loo helo tiibaan ku kacnay annagana bilownay wala casumay USB baa dhalatay electionkii baa la galay anoo soo gaagaabinaya labadayadii marka majority absolute majority way heli kari waayeen waxaana ku talinay in badweyn kulligayo Soomaali weyn aanu soo dhaxgallo ay dhalato Soomaali weyn taas way ka xumaaday ka bacdi halkaas la isaga qaaday propaganda iyo dacaayad waana ay hadiyo goor wadayeen ilaa imika ay soo gaartay hadda markii xarakadan la bilaabay hargeysa sida xamar bay ahayd waa la wada deganaa dadkoo dhan way ka dhaxaysaa loo kala bato waxaan nidhi dad isla jaaraanahay strategically gobolka awdal waa haddii meesha uu maro inba jamhuuriyadda Soomaaliyeed maraysa taasaan annaguna ictiraafsanahay saasayna ahaanaysaa ninkii rabaa diido nalama ayaan tashan iyagoo nala tashan waxa la yidhaa awdal mashaakil male marka aynu dhalino dawladnimada laba bas iyo xaaji 50 baa loo dirayaa waynu soo ururinaynaa war ma aha ka jooga wax nala tashada ma urti suga leeyahay wabana niri waday way dhalatay waa iyagana xarakadii bay ku kaceen iyagoo marka isxaaqiya ay ku soo baxday markii hore welina toodii hore la daba jooga in gobolaysi ku kacaan annagana weligeey aan diidanayn waxaan niri annaga jamhuuriyadda caalankaas madooba noo calan kii haya marka de kaasuun baba hayay dictatorka imika tagay iyuun baana noo annaga maarta aan raacsan khilaafka weyn waa nala safta iyo nala tashana yahay nala ma tasho waana qursateen Soomaa idinka leewa ka baxa marka badda gashan waa halkii wuxuu yahay maanta halkii wuxuu yahay Soomaaliya oo dhan maanta isla halkii 60kii iyo ka hooseysa iyo ku soo noqotay wuxuu ku iman karaa halku dad walba gobol buu leeyahay dad baa ka dambeeyay cadaaladda waxa lagu qaybiyaa aan leenahay waxay tahay in loo ogolaado
taqriir almasiir waxaa la yidhaha inuu dadka gobolku aayihiisa ka tisto isagu si cadaaladii ku jirtana loo qaybiyo xukunka oo iyagana la siiyo aayahooga inay ka taliyaan ka bacdina jamhuuriyaddu inay dhisnaato soomaali weyn inay kala go'do ma ogolin kolla soo waxa weeye awdal marna ogolaan regional autonomy baa qabtay adigu mar maya regional autonomy ma rabo yani in wixii yar yar oo mulka dadweynaha autonomy gobolkiisa loo daayo baananka cusbitaalada jaamicadaha hadduu samaysan karo gobolkii loo daayo injineer maxamed maydhana warsame kacdoonkan muxuu ka bilowmay waxa meega taadaawan ka dhaan taa sida la wada ogyahay dabcan kacdoonkan wuxuu ka bilowday dhibaatadii isdaba joogga ahayd iyo cadaadiskii fara badnaa ee dadka lagu hayay dadkaas oo dareemay in yani xuquuqdoodii iyo waxoogii oo dhan in yari ku intifaacayso iyagiina ka qatan maxamed siyaad barre waxa aqoon ma u lahayd adigu personal ها عادي waayo anagu ciidamadii hore ahaa ilaa 61 baa ciidamadan ku jiray maxaa ku tilmaami kartaa maanta waxaan ku tilmaami karaa yani kelidii taliye la iska qabtay oo dhaxalkeeda maalay yani aayihii xumaayu isagu geedkii u beertay mirihiisii oo xumaanta ah tilmaanta sharci ka bixin ka dhayna tilmaanta sharci ka bixin ka dhayna kulli taas un baa taas waa ogsooneed shalayna waa ogsooneed maantana waa qabtaa arrintaas maantana waan qabaa shalayna waa ogsooneed wax qabada waad ka maxaa ka qabatay waxa istakaah samaysay wallahi wax askatoon isaga u sameeyeen persona ma jirin sida dadkuba nin walba u nacbaana waa u nacbay laakiin anu kulli waxaan ku socday tii ahayd xadiiska nabigana ku jirday oo ahayd yani xumaan haddii aad aragto gacantaada ku toosi haddii aad kari weydo afka ku toosi haddii aad kari weydo yani uurka ka nac marka wadalika adcafu liimaan taasuun maahayna nin markaas kaliya talinayay isagu gacantiisa wuxuu la tegaya haddaan sida iminka kacdoonkan lagu biirin ma jirin kacdoonkani markii uu biirina isla haddiiba annagu waan ka goosanay waxaanan ku jirray jabhadihii dagaal gelinayay nimanka la dagaalaya taasoo yani aan ahayn adiga naftaada aan isku aragnay adiga oo markaa journalist weyn oo ahaa journalistka uu keliya loo ogolaa inuu dagaalka sawiro adnagu soo martay anagoo jabhadii dagaal gelinayna isagina la dagaalayna isagoo wali wadanka ku jira waxa la yiraahdaa badanaaba guuldarrada waa laga sheekeeyaa guushana waa lagu faanaa waa sax maxamed siyaad barre maanta waa jabay nin walbana wuxuu isku sheegayaa inuu mucaarad yahay nin walbana wuxuu isku sheegayaa astakaynayaan inuu ahaa dhigyacab maxaa shalay loo sheegi waayay waxa loo sheeli waayay taas yani jawaabteeda horena way ku jirtay waxaan u mayaa in aqliga fiican ama ninka hadduu geesi yahay waa inuu garan karo goorta ay wax u bisil yihiin ee uu sheegi karo ama uu wax qabashadeeda ku dhaqaaqi karo wixii oo aan kuu bislayn ama dadkii oo aan markaa u diyaar ahayn keliga haddii aad iska kacdo waxa waaye taaluka aadna kugu jirta dadkii aad wax u qaban lahaydna waxba u qaban maysid aad markii annagu aan aragnay in dadkii bislaaday in dadkii ay tahay waqtigan inuu kaco markaas aan dadkii tilmaamaha awalba hoos aanu ka wadnay ama aanu siinaynay aanu la kacnay dadkiina aanu hogaaminay laakiin haddaan keligaya ku bilaabi lahayn dadkii aan weli diyaar ahayn waqtigaas looma diyaar garoobin baan qabaa magacaaga saddexan sariiq wuxuu Yuusuf Talaa Cali Yuusuf Soomaaliya waxay soo martay Soomaaliya u tahay hawaalna u tahay marxalada qalafsan 22 sano oo burbur iyo baaba ay kala qaybina Soomaalidu inay aragti midaysan kala haato baabi iyo dhibaatooyinkii gaadhay ayna maalmahana ka faa'iideysato waqtigana ka faa'iideysato dabadna caana daatay dabad waa la qabtaaye ay isdaba qabato ninka soo Soomaaliya uu qabaa waxay ku xidhan habka iyo meesha iyo maxay waqtiga uu baahada la sugayaa maahe taa nin kastaba in dhibaatadii laga soo waaqsado oo maanta Soomaaliya dib loo dhiso waayo eber baynu ka bilownay hadda 60kii si aynu u bilownay baa hadda wadankii yahay marka nin soo kasto Soomaaliya wuxuu ku talinayaa in la isku wada tago xuduud iyo maskax la isku geeyo iyo maal sidii Soomaali maaragtaa dib loogu soo dhisay cudurku wuxuu ahaa cudur ka dhashay shacbiga Soomaaliyeed mise wuxuu ahaa mid abuuray kariitariska Maxamed Siyaad Barre
hadda sida taariikhduba sheegayso keligii taliyuhu had iyo gooraale maaragtay waa nin keligii tashanaya oo ummaddan ku xukumaya ruyo sharciga iska laabaya maskaxaa wanaagsan ee dhiiran runta u sheegay karaahaysanaya inta kaliya daba dhilifka ah uu isagu xiniintooda taabto iyo maskaxdooda ayuu ku shaqaystaa marka sababta ugu weyn ee waddanka halkan maanta ku sugaya uu ku gaadhay waa keligii taliyaha wey tawashada ku jirtiin maxay tahay si aad dib dambe ugu tashaan soo celisaan kalsoonidii dagaankii wada dhaladkii dhaqankii Soomaaliya waxa maanta nin kasta way aragay ku talinaya ama maskaxdiisa ku jirta waxa weey intii maxay ahayd Soomaalinimo dareemaysa intii maskaxaan xalaal ah ee Soomaaliya in maxay ahayd ay iska aragto iyaga oo maskaxdooda ka saaraya yaali dib noo dhigi jiray sida qabiilka oo aan bees soo dhigno wax la yiraahdo criteria ayaa wadankan maaragtaa maskax u noqon karay iyadoo ayaa wadankan Soomaali runa ayaa wadankan xalaala iyadoo isla markaa lafteeda aarsigii hore la yareynayo waa in bees laga dhigaa arrimahaasi dabadna maxay ahayd sarta halka laga tolaa nisaas ay la tahay nin walba wuxuu sheegaa inuu ka talinayo maslaxada shacbiga Soomaaliyeed soo celinta karaamadooda taas lafteeda waxa sheegi jiray raadiyaha Maxamed Siyaad Barre iyo maxaa la yiraahdaa taliskiisii shacbigu seebu idin kaleeyaad kalsoonidiina seebu idin aaminayaa maxaa garansiyo hosiin karaysaan waxaan siin karaynaa in kastoo keligii talinayay laakiin mas'uuliintu kaalmay ku jireen mid waliba meel buu ku jiray mid waliba ummadda lafteeda tilmaamayso nabigu wuxuu yiri la tajmacu ummati ma'a al-khada ummadaydu been isku muwaafaqday in waxa jiray maamul hayay oo madaxweynaha oo hadduu Maxamed Siyaad Barre awood waa inuu bedelo maamulkiisa Soomaalinimo iyo cadaalad iyo maxay ahayd jacayl ku maamulay baa jira mid waxa jira uu isagu sallaan ka dhiganay uu ku rabo doonay soo diloodanay ku rabada odanay janne ku rabada odanaysan ee samee uu sallaan ka dhiganay marka ummadda Soomaalida marxaati hadalku marxaati ma noqonayo waxa marxaatiya dadkii la maamulay ummadda Soomaaliyeed walba sida uu aragto loogu qoro magacaaga saddexan injineer Umar Cabdullaahi Handi Mr. Handi waxaan ka maqalnay raadiyo Muqdisho in loo magacaabay dawlad ku meel gaar ah leh madaxweyne ra'iisul wasaare maxaad ka qabtaa dawladdaas ma tahay mid shacbiga kalsoonidiisa haysta dawladda anagu waxaan ka qabaa inay tahay dawlad ku meel gaar ah loogu waqtigan faasahan ay waa in la helaa wax maamula oo shirweyne qabanqaabiya ama si mucaarif isku yimaadaan inkastoo ina kalsoonidii dadka ay haysan haddana waxaan qabaa haddii uu kale taliyihii baxay waa in la helaa mataqaanaa maamul meeshii sii gaarsiiya inta dadka Soomaalidu ay ka tashanayaan si fikrad ahaan anigu waa loo baahnaa mataqaanaa cid kasta haatee in dad sii gaarsiiya waqtiga haddii kale faakin baa dhacaya boob baa dhacaya dil baa dhacaya cid adduunyaha la xidhiidha oo dawladihii la xidhiidha oo sheegta mataqaanaa inkii la saaray oo daawooyin iyo mucaamalad ku raadisa in la helo waa laga maarmaan hase haatee anigu ma aaminsani in ay kalsoonida dadweynaha ee shacabka Soomaaliyeed haystaan